kurbada iyo warwarka qofka haysta faraj baa ka dambeynaya laakiin waxa muhiim ah qofku inuu qalbigiisu iyo naftiisu ilaahay ku xidhanta subhanahu wa ta'ala adduun weeye waxani uu dhamaan sida loo dhimanayo isna u dhimanaya adduunku u dhamaanaya laakiin waxa muhiim ah inaad ogaatid adduunku meel mushkiladeed inay tahay waa guri mushkilad waa guri nolosha la hardamayo waa meel aan loogu talagelin nolol rasmi ah iyo raaxo rasmi ah waa meel lagu gaboobo adduunyadu nin kastoo qurux badan hadduu noolaado waa kii gaboobaa waa meel adduunyada lagu geeriyoonayo noolo walbo dunida yimi geerin baa guntiisa ah waa meel lagu gaajoodo waa meel lagu haraado waa meel lagu bukoodo waa nolol aan loogu talagelin abadiye iyo rasmi nolosha rasmiga ahi waa nolosha aakhire ee dambaysa qofka muuminka caqliga lihi rag iyo dumar madax iyo majo waa meesha u shaqaysanayo qalbigiisa iyo hamigiisa ku weyn ilaahay maxaad kula kulmi doontaa maxaad ilaahay la hortagi doontaa haddaad caawa dhimato maxaa kaa horeeya oo godka la geli doontaa qofka muuminka arrinkaas warwar weyn ku haysa sida awgeed nolosha aakhira ka dambayso ka fiican walal aakhiratu khayrun wa nolosha aakhira khayr badan wa abqa baaqi ahaansha badan haddii ilaahay jannadiisa ku siiyo oo kugu casumo waa meel aan lagu geeriyoonin oo geeri ma jirto waa nolol abadiye ah waa meel aan lagu bukoonayn waa meel aan gaajo iyo haraad iyo qorax lahayn waa meel aan xanuun lahayn dhibaato lahayn nolol raaxa ah meeshaas ah waa meesha qofka muuminka ay qalbiga uu ku hayo haddaba tan aynu joognay dunida ah ee hawsha badan ee qofka muuminka ahi dunida nolosheeda maalinba waxa taagan buu qofku oranayaa wartani maanta malaha waataad ku bixi lahaydba haadihi muhlikati dhibku waa imaanaya waxaa imanaysa abaar baa imanaysa gaaja imanaysa xanuun baa imanaya faqri iyo busaarad baa imanaya colaad baa imanaysa baqdin baa imanaysa dayn baa imanaya mushkilad baa imanaysa geeri dadka jeclayd baa laga dilaya oo dhimanaya waa guri mushkiladeed markay dhibaatadaasi ku taabato ilaahay wuxuu ku tuujinayaa inaad qalbigaaga iyo naftaada isaga ku xidho wuxuu ilaahay ku farxayaa oo jecel yahay inaad gacmaha u taagato oo u qayshato yaa rab ilaahayow rabbiyow aad tiraahdo oo meelo kale aadan damcin oo hunguraynin buu ilaahay rabaa subxaanahu wa tacaala makhluuqa dunida dusheeda saaran mid madaxweyne ah mid boqor ah mid garaada mid ganacsada ah mid faqiira mid buka mid caafimaad qaba rag iyo dumar kulligood ilaahay bay u baahan yihiin kulligood waa fuqaro faqrigeennu waa mid daati ah nafteennu ku yaala ilaahay markaasuu wuxuu leeyahay yaa ayuhannaasu antumul fuqaraa'u ila allah wardadiyahow waxaad tihiin baahanayaal ilaahay baad u baahan tihiin wallaahu huwa alghaniyu alxamiid ilaahay baa iskaa baraya adna waxaa tahay baa laguu sheegaya alle waa axadka haniga ah subxaanahu wa tacaala ee mutahadiya gooraale maxmuudka in la mahadiya muta alle subxaanahu wa tacaala nebigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qofku markay mushkiladahaas soo qaabilaan oo noloshii aad ku noolayd adoo busaarad ka cabanayay baa xanuun laguugu daraya adigoo busaarad iyo xanuun ka cabanayay baa abaar laguugu daraya adigoo abaar iyo busaarad iyo xanuun ka cabanayay baa laguugu daraya colaad adigoo waxaa ka cabanayay baa waxaa laguugu sii daraya ilaahay wuxuu doonayaa inuu ku tuujiyo macaankaaga in la soo saaraa la rabaa inaad cibaadada iyo alle u dhawaato rabbi u qayshatuu rabaa sujuudda inaad ku bariduu rabaa inaad gacmaha u taagto codkaaga uu maqlo adoo ooyaya adoo baahidaadii bandhigaya adigoo isaga u qayshanaya buu doonaya alle subxaanahu wa tacaala markaasuu dembi dhaaf ku siinaya oo waxaanoo dembiyo aadan ogayn adigu kugu raran oo diiwaankaaga ka buuxu kaa qubaya darajaad iyo rafci darajaad buu ku siinayaa muraadkaagana waa ku siinaya alle subxaanahu wa tacaala
nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jiro qof warwar iyo murug iyo dhibaato iyo xanuun uu ku imanayo oo ilaahay baryaya allaahumma innii cabduk wabnu cabdika wabnu amatik ilaahu anigu addoonkaagii baanahay addoonkaaga inankiisii baanahay addoontaada inankeedii baanahay naasiyatii biyadik fooddayda iyo naftaydu gacantaaday ku jirtaa maadin fiya xukmuk xukunkaagu waa igu fulayaa hadal la'aan maadin fiya xukmuk cadlun fiya qadaa'uk xuxi aad igu xukuntay qadahaaga ahna waa cadaalad weeye cadlun fiya qadaa'uk as'aluka bikulli ismin laka waxaan ilaah wax kugu weydiisanayaa magac kastoo aad leedahay oo magacyadaada ka mida samayta bihi nafsak magacaaga naftaada aad ku magacowday aw anzaltahu fii kitaabik ama kitaabkaaga aad ku soo dejisay gudihiisa aw callamtahu axadan min khalqik ama aad bartay cid khalqigaaga ka mid ah aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindak ama aad ilaahow ku daysatay oo aanay cidi kula ogayn magacaad leedahay iyo tilmaanaad leedahay oo aanay cidi kula ogayne cilmigaaga qarsoon ee agtaada yaalla ku sugan intaasan ilaahu wax kugu weydiisanayaa magaca aad leedahay qur'aanka cadiimka ilaahu qalbigayga mid barwaaqo iyo hanuun iyo toosnaan u ziyaaday ilaahu ka dhig ilaahu dhibaatada i haysa iga dulqaad mushkiladda i haysata iyo walwalka iyo murugada ilaahayow iga dulqaad hadduu dayn yahay ilaahu daynka iga bixi hadduu yahay maxaan ku raahdaa xanuun ku hay ilaahu xanuunka iga dulqaad haddii uu yahay ciriir ku haysta ilaahu ciriirka iga dulqaad haddii gaaja jirto ilaahu gaajada iga dulqaad hadday colaadi jirto ilaahu colaadda iga dulqaad hadday abaari jirto ilaahu abaarta iga dulqaad markaad ilaahay sidaa taar saxaabadu waa dhegaysanayaan rasuulku xadiidka u sheegaya salawaatu rabbii wasalaamu calayh markaasay tacajabeen oo xadiidkii la yaabeen yaa rasuula allahi yanbagii lana an natacallama haa'ulaa'i alkalimaat rasuulka ilaahayo miyaanay habboonayn erayadan aad noo sheegtay qiimaha badanee caqiidada ah inaannu baranno miyaanay habboonayn rasuulku wuxuu yidhi haa qof kasta oo maqlaa waxaa habboon inuu xafido oo barto buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam suu ilaahay ugu baryo subxaana wa tacaala waxaynu u baahannahay wain yamsaska allaahu bidur falaa kaashifa lahu ilaa hu haddii dhib ku taabto isaga unbaa kaa qaadi kara mu'min miyir qabo oo rabbigii ku xidhan nolosha adduunka fahansan rabbigii aan u dardaar warinayn ilaahay aan ka cabanayn waa inaad noqotaa laakiin rabbii ku korso inaad noqoti baa la rabaa qodobka koowaad waa qodobkaas qodobka labaad walaalnimada islaamku maraatibta islaamka diinta islaamku martabaday leedahay martabada ugu sarraysa diinta islaamka waxaa la yidhaahdaa al-ixsaan waa labadii muxaadaray habeenkii dhoweyd masaajidka ka baxay ixsaanka iyo qiimuhu leeyahay qofkii labadaa dersi dhegaystay wax weyn buu ka faa'iidayaa labadii dersi sheekh cabdillaahi akhri xafidahu allahu waracaah qofkii dhegaystay wax weyn buu ka faa'iidayaa halkaa waxaa ka ogaanaysaa ixsaanku waa derajada ugu sarraysa diinta islaamka saddex buu u qaybsamaa ilaahay cibaadadiisa inaad ku ixsaan fasho oo shirki iska ilaaliso si yaqiina alla u caabudid sida adigoo ilaahay arkayoo kale haddaadan adigu arkayn isagaa ku arkaya qodobka labaad dadka inaad u ixsaan fasho wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin wa axsin kama axsana allahu ilayk war sida ilaahay kuu wanaajiyey wax u wanaaji qodobka saddexaad alixsaanu ila alxayawaan xayawaanka inaad u ixsaan fasho oo kuwa mayeedhaanka ah ee cadkooda iyo caanahoodu inoo xalaal yahay inaadan gaajaysiin hawl badan iyo gaajo isugu darin inaadan dibindaabiyeen inaadan dilin inaadan meel dayacan ku hayn inaad ilaaliso xayawaanka kale ee bisada iyo ayga iyo bahallada hoose iyo wixii shareecadu hal la dilaa ay tidhi mooyaane inaan la dilin waxaad arkaysaa carruurteenna sidaan loo wacyigelinaynin halkaa iska maraysa ama orgi halkaa maraya intay isugu tagaan dhagax inay baabax kaga dhigayaan kuwa intay bisad isugu tagaan dhagax kow kaga siinayaad arkaysaa xayawaanka lama dulmiyo waa loo ixsaan falaa nebigu wuxuu tilmaamay qof dumar oo zaaniyad ah inay timi iyadoo harraad reer bani israa'iila intay ceel timi oo biyo ka cabtay oo muslimiintii reer bani israa'iil ka mid ahaa
ceelkii markay ka soo baxday aragtay ey haraad daraadii dacda cunaya oo ceelka intay dib ugu noqotay waraabisay eygii ilaahay dembigeedii oo dhan wuxuu ku dhaafay ficilka ay xayawaanka u samaysay oo janno alle ku siiyey subxaanahu wa tacaala. walaalnimada islaamku waa 3 martabadood. taas waa islaamka guud. walaalnimada islaamku 3 martabadood weeye. martabatu alculya, martabatu alwusta, martabatu aladna. martabada u sarraysa walaalnimada islaamku waxaa la yidhaahdaa al-iithaar. waxaad adigu u baahan tahay oo aad walaalka u doortid oo naftaada weydaarisid, adigu isdhaafi isagaa kaa daranaysi aad tiraahdo. waa meesha islaamka darajada walaalnimada ugu sarraysa wey. darajada dhexdhexaysa martabatu lmusaawaah baa la yidhaahdaa, martabada sinaanta. walaalka inuu kula mid yahay, muslimka inuu kula siman yahay, inaadan xaqirin, inaadan yasin, inaadan quursan, inuu kula siman yahay. muslim walaalkaaya inuu yahay qalbiga waa inay kaaga qoran tahay, waa in caloosha kaaga jirtaa. waxay keenaysaa inaadan xaasidin, inaadan xumayn, inaadan lugoyn, inaadan ceebayn, inaadan nicin bay keenaysaa. waa inuu kula siman yahay. wixii ku damqayaan baad garanaysaa. wixii kuu dana inay danu yihiin baad garanaysaa. wixii kuu wanaagsan inay u wanaagsan yihiin baad garanaysaa. martabada u hoosaysa ee martabadaha walaalnimada islaamka waxaa la yidhaahdaa martaba salaamatu sadr. waa in aad caloosha iyo qalbigaaga dadka muslimiinta caloolfayoobi iyo caloolxaadhnaan kula noolaato. waxay oran jireen culimmadu salaamatu sadri sabiilu salaf. caloolfayoobaanta aadan cuqdad iyo nacayb iyo ciil iyo naxli iyo nacaybshiinyo aadan walaalka muslimka u qaban waa nabadgelyada ugu fiican ee qalbigaaga iyo calooshaada gasha weeyaan. maanta waxaad arkaysaa dad iska neceb, qof iska neceb. war muxuu ku yeelay qofkaas? dhiiggaaga iyo dhaqankaaga wax ma u geystay? maya, waan iska neceb. warniyow soomaadan arag qof la iska naco, way iska nacay. maxaad ku nacday? ama qabyaalad buu ku nacayaa iyo qabiil, ama wuxuu ku nacayaa xasad uu xasidayo. see u noolaan karaa? sidee sharaftaa u yeelan karaa? sidee caynkaa u noqon karaa buu ka xaasidayaa? ama qabyaalad buu ku nacayaa, ama wax kaloo balaa jaan buu ku nacayaa. arrintaasi salaamatu sadri laabfayoobaan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam subax isagoo masaajidkiisii fadhiya, nin gadh weyn oo weysaystay oo gadhku weysada biyuhu ka dhibcayaan baa soo galay. markaasuu yidhi war ninkaa ma u jeedaan? saasaa loo wada eegay saxaabada, waa ahlu janno. subaxii labaad buu albaabka laftiisii ka soo galay isagoo intuu weysaystay gadhkiisii biyuhu ka dhibcayaan gacantana kabihii ku sita. ninkaa ma aragtaan ahlu janno weeye. sidoo kale subaxii saddexaad nin saxaabada ka midoo cabdullaahi bni camar ibn alcaas la yidhaahdaa wuxuu yidhi walle waa inaan ogaadaa ninkaasi wuxuu waxaa ku mutaystay. habeenna dhowra ayuu yidhi xaafaddii baanu isyara seegnaye aan habeenna kula joogo 3 habeen buu aqalka la seexdo isagoo u kuurgelaya oo u dhabagelaya cibaadadiisa. bal ninkan jannadu markhaatiga rasuulka uga kacay sallallahu alayhi wasallam. habeenkii saddexaad wuxuu warniyo wax mushkilada ma jirta arrintaasaan maqlo rasuulku 3 cisho isxiga uu sidaa yidhi. maxaad ku mutaysatay? wax kale anigu garan maayo buuri. waad aragtay wax camalo siyaadoon samaynaya miyaad aragtay? may, laakiin 2 qodob baan leeyahay. weligay habeen ma seexan qof muslima anigoo caloosha cuqdad iyo cadaawad ugu haya. weligay habeen ma seexan anoo qof muslima calooshayda cudur iyo cuqdad iyo cadaawad ugu haya. midda labaad, qof muslima wax uu ilaahay siiyey oo nicmo ah weligay ugama ba'ino ugama xumaanin, inaan ku farxa mooyaane. labadaasaad ku mutaysatay. yaa arrinkaas samayn kara buu yidhi. waayo cidda samayn kartaba adiga aan ahayn. qodobka u dambeeya ee iithaarka ku saabsan, galab baa rasuulku isagoo saxaabadii la fadhiya salaaddii maqrib ka hor, nin baa rasuulku wuxuu arkay raggii soo dhex maraya aad baahi uga muuqato iyo busaaradii ka muuqato. ninkii rasuulku ku soo dhowaaday, yaa rasuulallaahi, gaajo adag baa i haysa, meelna waa ka soo galay, waa baahanahay, gaajaa i haysa, waad i aragtay xaalkayga, imarti geli. nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabada ka mida u yeer, orodoo bal reerkaygaa tagoo rasuulka martibaa u timiye wax lagu martigeliya soo weydii.
waa soo noqday ninkii durtaba rasuulka ilaahay oo reerkii waxay igu yidhaahdeen walladii bacathaka bilxaqi maa cindana ilaa maa ilaahaygii xaq kugu soo saaraanu ku dhaaranay biyo madow waxaan ahayn guriga ma yaallaan oradoo xaaskayga labaad u tag xaaska saddexaad u tag ka afaraad u tag ka shanaad u tag ninkaasi waa soo noqdaa rasuulku dhegta afka u saaraa jawaabtu waa isku mid biyo madow waxaan ahayn guriga waa tii bela laga qaadaa ma yaallaan rasuulku talaa ku caddaatay waxna ma hayo reerihiisii waa laysu soo maray intay tiro la ekaayeen caaisha waxay leedahay waxaa nagu dhici jirtay 2 bilood oo noo bisha oo noo dhammaada bishii saddexaadna noo bilato guriga iyaga dab lagama shidi jirin waxaanu calaalinno oo ilkaha ku calaalinno oo cunto ah ma aanan arki jirin dabba lagama shidi jirin guriga iyaga inanay habaryar u taho curwo la yidhaahdaa ku yidhi hooye maxaad ku noolaydeen labada madmadow baanu ku nooleen biyo iyo timir marmarka qaarkoodna reer nala jaaro ansaara oo neef marabiya haystay ayaa rasuulka marba xoogaa caanaa u keeni jiray u kabkabado calayhi salaatu wasalaam saxaabadii buu la hadlay marka waryaa ninkaa ii martigelinaya nin baa yidhi anaa martigelinaya rasuulka ilaahay abu talxa zayd ibnu sahl alansaari waa dhaqaaqay wuxuu u tegey xaaskiisii dhegayso marti culus baa inoo joogta saasaa galabta dhacday ninkaa martida abaa jooga maxaad haysaa wallaahi wax kale ma hayo wax yar oo shuuro ah oo aan carruurta isleeyahay aduu walaaqdid oo aad kakabisiisid ayaan hayaa dhegayso carruurta dabka biyaha dheriga u saaroo sasab gaajada ku seexi ninkaa martida rasuulka ilaahay ah inta yaree carruurta loogu talagalay isagaynu ku cashaysiinaynaa cishaha kadib markaan guriga keeno soo dhig cuntada wax la cunayaan iska dhigayaa gacanta markuu geliyo aniguna aan sidaa gacanta ku idhaahdo kac oo faanuuska bakhtii markaad bakhtiiso waxaan u tusayaa inaan la cunayo sidaa yeel sidii bay yeeshay odhan may hadlinoo kamay buuqin maanta laga yaabo inay arrintaasi suuragalba noqon kari lahayn dabeetana sidii baa la yeelay reerkiisu u dhammaa carruur iyo hooye iyo aabbo qatooye iyo gaajo iyo baahi baa lagu seexday ninkiina waxaa la tusay habeenkii in cashadii lala cunay oo reerkii wada dhergay waagu markuu beriyey ayuu rasuulkii markii la tukaday majliskiisii yimi rasuulkii baa saa u soo eegay mise rasuulka wejigiisu waa wirwidhayaa farxad iyo waxaa ka muuqataa dhalaal iyo qurux markaasuu yidhi xalay maxaad ilaahay xalay wixii aad samayseen qoyskiinnaasi ilaahay xalay waa la cajabe waa u bogay alle subxaanahu watacaala ama alle waa ku qoslay subxaanahu watacaala markaasaa waxaa soo degtay aayadda qur-aanka ah wayu'thiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsih faulaa'ika hum lmuflixuun naftooday ka doorbidayaan cidda baahanee walaalkooday siinayaan qofka muslimkaa iyagoo macaluuli hayso khasaasa waxaa la yidhahdaa gaajada daran waa soomaaliga waa macaluul gaajo iyo macaluul luqadda soomaaliga farqi baa u dhexeeya macaluushaa sii daran iyagoo macaluuli hayso waxay cuni lahaayeen ku noolaan lahaayeen bay bixinayaan oo siinayaan waman yuuqa shuxa nafsihi qofka naftiisa dhabcaalnimadeeda laga ilaaliyo waa liibaanin ba alla yidhi subxaanahu watacaala waqti waxaynu ku jirnaa adag soomaalidu waxay tidhaahdaa waa la doogayaan la dacaroon bay soomaalidu tidhaahdaa war roobku waa da'ayaa oo colaadaha iyo culaysyadu waa tegayaan oo haddii alla idmaayo xanuunku waa kacaya oo shaqola'aanta iyo busaaraddu way kacaysaa iyadoo waxaad arki doontaa cid dadka la baafinayo waryaa shaqo raba shaqo soo doonta cisho dhow baad arki doontaa intaasoo shaqooyina abuurmayoo soo bixi doona xanuunka alla qaadi doona bacmushtarkaa inoo furmi doona ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba iyagaa shaqo inoo soo doonan doona iyagaa magaaladan cilmiga u soo doonan doona iyagaa magaaladan deegaan u soo doonan doona cisho dhow waxaad arki doontaan dhulkeeda oo dahab la siisanayo baloodhadeeda maanta 5 kun 6 kun lagu laayahay iyadoo 50 kun la siisanayaad arki doontaa ninkii gaara nolosha adduunku waa koobanta sheeko un weeye adduunka waxa laga sheekaynayo laakiin inta ka horeysa yaan maxaanku la isku dulbakhtiin yaan albaabadu ganjeelada la isu soo xidhanin yaan baabuurta la isu dallacanin yaan la isu bakhtinin yaanay dhicinin moobeelkiiyo akoonku wax ugu jiraan midna wuxuu ku shaaha ulaa'ye dadka ilaahay waa isu eegaya subxaanahu watacaala
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا يا رحمن